السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يالكو سو دوادا كلانتي كلا oo xiisa xambaarsan waana barnaamijkii ila qosol oo maanta ay marti igu yihiin igula joogan dhalinyaro aad iyo aad idinka qoslin doonta nin walba waxaan weydiinayaa hal su'aal ah su'aashaas oo ah nin walba wixii dunidan ugu qosolka badnaa ee soo maray waxaana idinku dambaysiin doonaa tayda oo ah aan u malaynayo inay noqon doonto tan ugu xiisaha badan waxaan ku horeynayaa ninka la yiraahdo Cabdiraabi Ugaaska oo aan dhahayo bal qisadii kuugu qosolka badnayd iiga sheekay inta aad dunida joogtay ee noolayd kulli qisooyin badan baa jiray laakiin hal mid aan ka codsanayo inuu iiga sheekeeyo ya Cabdiraabi ku soo dhaw barnaamijka barnaamijka horta aad baan ugu dhawahay hadii maanta qiso la sheego waxyaabo badan waxa jirta oo igu qosol badnaayeen laakiin mid igu qosol badnaa waxay tahay maalin baa aroos baan ka qayb galay arooskii markaan ka qayb galay oo cuntadii aan cunay oo arooskii gabadhii la soo gilbiyay gabadhii marka waxay dhaqanka Soomaaliya ay yaqaan gabadha guriga iyada lagu hormarinaya kadib ninkii baa la dhahay orod gabadhii u tag ku diyaar bay tahay gabadhii baa guriga la geliyay gabadhii markii guriga la geliyay hoos baa lagu soo xiray marka gabadha markii guriga waxa ugu hormaray nin waalan markaasoo inuu galay oo basti isku duubay oo meeshiisa saxday لكن وعند هذا نكاد وقاصة ومرأة وزي جبت سجارة وتك أيوة عادي بس نك وانا عزاج وحايس جورة فريه ما ساعتها يا شو صناعي سلام منك ورقم سلام منك ورقم يا عروسك ما موجي يقولين سجارة سي بينك هوس كسوق شيء نك والله إنه بود توريس بود قبل جق جق ما يشوف قبل كده مرة دي بيقول وسكتي ninka arooska socda imaade gabadha wuxuu sameeyay meeshu bastii ku daday buu ka tagay marka mise ninka wuxuu sameeyay xaaska waa ku diyaar bal shaqadaas ka qabsan laakiin uu dansadii gabadhii hoosta galaasin ee baa dhiig buu arkay wuxuu soo booday yaani kuma fikir jiray ku fikir jiray inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun markii gabadhu way dhaawacantay meel dhiman marka way socday gabadhu way dhaawacantay dhiig badan waa ka baxay ninkii dhiigtii wuxuu la kulmay guriga mugdi ahay wada gabadhu waa laga baraala fikir jiray Cabdiraabi sheekadiis aad iga qoslisay aan ku xigo qisada Cabdiraabi inta ay u eegtay ninka la guriga bal adi maxaa kuugu la yaab badnaa ama kuugu qosol badnaa inta dunida ku noolay inadaro macaano aniga la yaab muwaay qosol ma tayda waxa ay ugu la yaab badnaa aniga sidaan maxay heeday hore kugu sheegay baa aniga waxaan joog jiray dul hadee magaalo inta badan ahay duurka waxyaalaha magaalada laga isticmaal aad uma aqoon jiray Soomaaliya garan maalinka igula la yaab madin oo aniga hanteedii la hadda maskaxdayda ay qaadan la lahay waxa way maalinka mas'uul ani aan ka soo baxay ay maamada soo dhaxay gashay maalinkaas قصة يقول عبد هذا نقرأ دوجو غير قصة دم كقرية لكن ما نكاس ما نقدر أي أقول يا بنت قال مسخوشة محل سمي هذا لو ذكرين ما أنا أقول إن جرد حيري مسخوشة وحاي يقول يا بنت أنت عن قلي أو كسر بحي أي صد هذا كشيء إن أديكوا بالمرة عجيبوا بالله قصة كوجو قصر كأيه وحال صابر هاي وسلام عاد بكو سلام وان ka qaaday kuna soo dhaw waxa ay wiilaya badnaa maalin maalmaha kamida magaalada Garissa oo ku ciyaarayna kubad marka wiil yar baa kubadii ku dhacday cunugi marka waan darbaxsheene aniga cunugi mar darbaxsheene cunug kale saaxiibkii darbaxsheeye marka hooyadii in yar biino jirto waxay karinaysay baradho meeshii ku karin jirtay marka cunugii la darbaxsheeyay aniga lahjid saama aqoon wiilku wuxuu ahaa marka dadkan Kenyaanka dadkan tinta adag waxa kadib hooyadii ay timi kaasay tiri cunugii maxaa ku dishay lahjideedii inuu tiri oo luqadii Soomaaliyeed ku tiri marka dhulka waa ku cusba maadan marka Soomaaliga ma aqoon waxa uu jawaabay sindiyo معناه أنا ما أقول مركا وحاكودا حلقين ما دلها ناديان هذا واحد لا اسمه كرنيسن واحد نعرف صاحب أنا حلق أنا دلها تاجر حاجة كذا ما يصير أورد عنق هذا مركو عده هاي كان معنا نكلا وين كيدي أنا لا أسكو عدينا يا أنا أسكو عدينا ما يعده سنديو تاسع يقول قصر بدل يا سامر aad iyo ma santiin daawadayaal sida qiimaha badan ee noo daawatay waa barnaamijkii ila qosol barnaamijkana wuxuu noqon doonaa insha Allah toddobaadle maalin kasta waanu idin soo gudbin doonaa qisooyin sidaas oo kale idinka qosliya waxaanu idinkaga tageynaa maanta anagoo
ama wax maamtay waxaanu idinkaga tagaynaa annagoo wax baan maamtay aw qisadaadii teer waa dhigasitaada aw qisadayda idinku daraa aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudanow waxaanu intaa kusoo waaniga ku sheekeynay taada aw sheekadayda dhimayd maydaan daawadayaasha xusuusin sheekadayda niyow waa sheeko maalin dhow la iga sheekeeyey أنا اللي يجي شيء يروح لك شيء والله من ما يحتاج أي قصة بدنا ذانيك واحد بتاع والله واحد يقول شيء كذا اللي يجي شيء يا كوي يقول يجي قصة بدنا waxay ahayd waxa la yiri meel baa xabaal laga qodiyo nin baa la aasir rabay dhintay Allah u naxariisto intii dhimatay amiin ninkii dhintay markii la aasir rabay xabaashii la qoday roob baa soo daatay roobka marka waxa la damcay inay waa meel baa laga galay xabaash agteeda ah mid baa la diray waxa la yiri kolka roobka uu qaaday ka soo fiirinay xabaashi biyaha galan iyo in kale xabaashi show kan ku sii socdo mid baa uga sii horeeyay oo galay oo xaaqay oo eelkii hagaajinay eelkana hoos baa loo qodaa wuu galay ku jiray ninkii kale meeshii uu soo dul istaagay oo yar qoqoyaan iyo waxba ahayd uu siibtay oo salka ku dhacay kii kore kii gudaha ku jira cunaha dhabsi وقاعد يقولي من ربك ابوك قاعد يقولي انا يوم انا كيف بتكون انت حق يلا انا